بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هلكن كسلام هاي أمة شعبك الصوماليات أنتي فيرسون إسائي أنتي فيرسون دون تجدال وقعد سنة هاي إلا شير جريو وسكراب كلا صاروا وما عرفتي وحكست له جدا دالو وحن رباه وحن أسوق علي إن كرب الآدم ووضعين داليري وحيالا أنا لودر قادم كرين أما أنا فيرسون كرين يكرفشن كي كسعودي صوماليا iyo in la xambaareeyo wasiirada xildhibaanada waxa ay u soo jeesteen ninka la leeyahay mursal iyo mudee arrimaha waxay u soo jeesteen inay ku tuntaan dastuurkii 60kii intii yareedoo dambe oo markii dagaaladu dhaceen la damacsan yahay in lagu daro dastuurka Soomaaliya ayaa waxa loo soo jeestay walaalayaal in lagu tunto dastuurka Soomaaliya wadanku dastuur buu leeyahay waxaana loo baahan yahay wixii ka maqan oo kii 60kii in wax lagu daro oo labada iyo kii dambeeto oo aan ku heshiinay oo federaalismuhu ku yimid okay maxumo Soomaaliya waxa la ogyahay kiisii 60ka inay ka dhici jireen wadanka election iyo isdoorasho ayaa ka dhici jirtay sida maanta ka socoto Soomaaliya nin xoog ku qabsan kara wadanka Soomaaliya ma jiro wax aan la isla ogoleen nin sameyn kara male maanta Soomaaliya waa dad wada dhashay waan ognahay laakiin aamin darro wax la yiraahdo ayaa ka dhacday marka maxaa dhacay sanadihii dambe inta uu farmaajo yimid oo wadanka uu madaxweyne ka noqday inta farmaajo uu yimid oo wadanka uu madaxweyne ka noqday waxa Soomaaliya ka dhamaatay in 17kii sano hore is-aaminaadii dadku ay kulmeen is-aamineen shacabka Soomaaliyeed in aaminaadii meesha ay ka dhamaato waana waxaan loo dulqaadan karin waana waxaan la qaadan karin marka waa la siyaaseeyay waxa la siyaaseeyay golihii sare waxa la siyaaseeyay golihii dhexe oo shacabku iska lahaa laba nin oo ma aragtay subhanaka minaka la yaab la aan ku leeyahay iyo nin aanan aqooninba sida baarlamaan loo wado ama dastuurka baarlamaanka sida loola dhaqmo xildhibaanada aanan aqoonin ku xigeen waxa laga dhigay mid kaleeto oo aqoon iyo diniyada uu leeyahay ayna jirin oo adiniyoon islaam intii quraanka waarkiis soo barana ka dheeraaday kaasoo horta waa muday ninka ugu xun oo keenay in laysdamci karo oo galmada keenay meesha oo farmaajo gacanta uga soo qaaday waa mursal iyo mudee waa labadii nin oo villada la fadhin jirtay wax yar baan rabaa inaan idin tuso saad ogtiinba wasiirada deeqo in la cambaareeyay oo ay damceen inay ka faa'iideystaan ama ay ijaafeeyaan gabadha Soomaaliyeed oo shaqo ku lahayn oo ayadu sida ay sheegtay oo caaw kitaabkeeda jaamaca ay ugu wadato dad baa waxay saareen shiishka gabadha direed dad cadow ah oo aan mari karin oo forsa tacliinta ay leedahay aanan lahayn cilmiga iyo aqoonta ay leedahay dad aanan lahayn ayaa shiishada saaray wala lagu wada dambaabay ilaahayna waxaan ka baryahayaa inay nacfisa annaka dhan balkay masawradii iyo wixii dadka la tusay ayaa lagu wada qalday afka wasiirada waa lagu wada dhigay Soomaaliya meel kasta annako shiishadan ku haynaa wax laalay wixii dhacana inaan sheegno ilaaha raalli ka ah wixii xaqa oo Soomaaliya lagu badbaadin karana inaan ka hadalno with democratic republican nahay annako dad democratic nahay dad islaan nahay dad kitaab wataan nahay oo la yiraahdo jaamac kitaab jaamaca marka annaka kaas ayaan ogolnahay in la ku dhaqo oo almeena wixii ka qaldan dastuurka Soomaaliyeed laga qaado quraanka oo lagu buuxiyo si loo kala dambeeyo marka walaalayaal maxaa dhacay baryahan madaxweynaha iyo mursal iyo mudee waxay wadi jireen hadal la yiraahdo galmada markii loo baahnaa in dastuurka wixii qaladaada laga saaro ama wixii aan soconayn laga saaro ayuu wuxuu ku mashquuliyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhaxgeeyay wax la yiraahdo galmada idageysta gabadhan waxay tiri Allahay ka alle afkeedaad ka maqlaysaan way hadashay meel caalamiyeey ka hadashay ana caaw waxaan rabaa inaan weydiiyaan u sheego intii aan la soconin oo gabadha hadalkeeda aan maqlin ma fahmaysaan marka waxaan rabaa xoogaa inaan inay taabto marka maxaa dhacay wasiirada dad gooniya ayaa shiishay waana gooni marka lagu shiisho oo la rabo in lagu dhigo shirqool in lagu dhigo markii la rabo waa isabtii waa wax loogu tala galay waana wax niman ka dambeeyaan waxaan iyo naaga yar oo magaca lagu sheegi karo gooban balkee way ka duwan tahay wasiiradu dad badan oo ayada la mid ah ama ku level ah ama xildhibaano ah way ka duwan tahay balkee qofka
وفهميسا إن جو مينيس وحي قد وانتهي وتيمتا اللي يري قبل سيدا اللي يقول شيء ودتك حرحران بقى اللي يري مي فهميسا مركا وحان ربا إنا وحي نيشيغو إن وحا اللي يري أفجوغو لو ما ديغو مركا وحان ربا وزيرة دا كتابك جامعة عاو بورصة كلا صوبح دي بل إلا دقيست إنتان قرآنك أيام كدارتي مركي وزيرك كتابك أيام كدارتي كتابي هستا مركي لإيه مقعابي عن فرصة أهلي إن عن أمد الصومالي دو أديد واكا كتابك جامعة قرآنك مركان كدارتي وحانو استاغي هوينك عرورتا دادك النقول دادك نافذة حقوق ذودي شروع ذودي دنهودي إن عن كتاليو تنا أنيغا عن إلهي هرتيسو كدواق عن كدارتي intaasna dambi ma aha waa wadaaya waanu istaagaya sharciga sababta keentay in loo suubino waxay ahayd baahi jirtay sababtoo ah sharciga maaragtay ciqaabta waxaa jiro dambiyo uusan dabooleynin uu sharcigan daboolayo dambiyo waxaa yimid oo kadib burburkii yimid oo waagaas aanan la aqoonin sideedana haddii dambigu uusan ku qornayn waxaa ka mid ah waxaa runtii ka mid ah haddii gabar ama haddii kufsi dhaco aan dhaho hadduu kufsi dhaco oo qofkii video laga duubo youtube la geliyo waagaas youtube ma qabin qofkii suubiye dambigaas qofkii lagula kacay ma aha keliya in jirkiisi dhib la gaarsiiyey waxa waaye noloshiisii inta ka dambaysa ayuu wareegayaa meel walbo sharciga ciqaabta sharafkiisii karaamadiisii sida loo shirqoolay arkaya oo dhibaato noqonayso qofkaas inuu mujtamaca xataa ku dhex jiro sharciga dambiga noocaas ah xeerka ciqaabta ma laha aniga iima yeerin sinaba iguma yeerin iima aysan yeeran baarlamaankana iima yeerin sideedan aniga keligay ma tegi laheenoo qubaradii oo sharcigan qoray ayaa ila imaan lahaa صح waxaa example ah qofka qoray iyo waxaa ka mid ah tahliil xaaji axmed oo abukaat tahliil oo 40 sano xaakina soo ahaa lawyer soo ahaa haddana ma aragtay jooga haddana ka hadlay warbaahinta intaas marka aniga hadday ii yeeran lahaayeen ama wasaaradda aan iraaho wasaaradda mas'uulkeeda hadday u yeeran lahaayeen dhihi lahaayeen inaan su'aalahaanaan qabnaa aan ishor fariisano ya taas bay ahaan lahayd mogtahay ani layma yeerin laakiin ma dhicin marka lasoo dhex marayo marka maxaad u qabtaa maxaad u aragtaa runtii aniga horta waxaan ka duulaa sharciga midda horta personal caayda iyo meel aan dhigo laakiin sideeda aan usoo noqdo sharcigan baahi baa u jirtay kursigana hadda wuu soo korayaa hadda waxaa ugu dambeysay allah u naxariistay gabadhii yarayd ee xamdi ahayd maalintii ka dambeysay 3 wiil oo caruura ma aragtay la xoogay baydhabay ka dhacday marka aniga dadkaas ayaan ilaahay hortiisa waxaan ka ballan qaaday inaan xuquuqdooda iyo karaamadooda aan soo celiyo dad waxaa waaye aanan cod lahayn dad waxaa jiro gabdho waxaa jiro iyo dhibanayaal aanan sheega karin aniga ilaahay hortiisa waxaan ku aan ma aragtay ka marka intii garaadka ay karaanka ayaad dhaartaas fulinayso shaqadaas qabaad sideed adigu sax waaye intaasaan u imid ba aniga aan shaqadan u imid marka ma waxaad isleedahay arrintan marka waa in personal laga dhigo deeqo iyo wasiirad waa laga gardaran yahay maad leedahay marka waxaan aniga leeyahay sideedaba qof faasiq ah markuu ku yimaado ama wax sheego waxaa loo baahan yahay diintu waxay leedahay hala hubsado warkaas hala hubsado haddii la hubsan waayana dembigeeda ee shareecada islaamka ku leedahay marka taas waxaan u dhaafayaa wixii suubiyey iyo wixii yeelay laakiin warka beenta ka sheegay runtii waxaan isleeyahay sideedaba qof mas'uul ah
qof alla muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ama mas'uuliyad markuu qaado ya waa inaan xaqiiqada wax walba in la hubsado hadalka lagu hadlaayana runtii in laga fiirsado dhibaatada uu keeni karo bulshada u keeni karo shakhsiga u keena eheladiisa u keeni karo mas'uuliyadaas way taalaa sharcigan 2 sano ayuu wuxuu yaalaa baarlamaanka intaasoo dhibaatana way dhacaysaa mas'uuliyadeedii meel in la saaro waay tacdiyadii way socdaan marka haddaan u soo laabto midda aniga waxaan runtii isleeyahay shakhsiyaad maxaa qaldamaa waxaan isleeyahay aniga runtii shakhsiyaad nacabay sameeyey waxaan dana siyaasadeed leh Waa ayaa kaas. arrintan siyaasadeed waa kaasa Dowladana ku qalday dad arrimo siyaasadeed watay ayaa gabadha wasiiradda magaceeda isticmaalay yaa waaye dadkaas aan dhihi karnaa oo ka shaqaynahayay galmada yay ahaayeen waa madaxweynaha waddanka oo maxamed cabdullaahi farmaajo la yidhaaho waa mursal iyo mudday saddexdaas nin ayaa waxay wateen siyaasad xagga galmada ah sidii ay u sharciyeysan lahaayeen oo dowladda Sweden iyo tan Norway iyo dowlado kaleba ay lacag uga qaateen ay ka sugaayeen waa the reality-ga markaan ka hadlayno marka wasiiradda deeqo dad ilaahay aanan ka cabsanaynin ayaa iyadu wixii ay ka sugaysay baarlamaanka golaha shacabka waxeedii iyadu ay ma aragtay xuquuq bil aadamka ay wax ugu qaban lahayd ayaa la siyaasadeeyay marka farmaajo waa kii geeyey warqadahan oo mursal iyo mudday u dhiibay oo yiri galmada ku mashquula yaa geeyo waay meeshaas yaa watay waa wasiir deeqa wadata waay marka Soomaali maxameday ijaafada waad aragtaan ragga siyaasadda ku jira madaxweynaha waddanka iyo labada nin oo ma aragtay golaha shacabka u sareeya waa mursal iyo mudday iyo farmaajo ka shaqaynahayay sheekadan galmada waxaa la rabay baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed inuu waxyaalo badan oo madaxweynuhu ilaa maalintuu yimid uuna waxba ka qabanin war hal wax ma uuna qabanin wuxuu noo sameeyey tiyaatarkii xasan sheekh sii bilaabay ayaa la sii waxeeyey oo la sii furay okay 4 sano oo meesha noo soo taagay badeeni ayuu ka soo celiyey meesha war waxaan maanta ka hadlaayay ma raba inaan ku noqdo marka ulajeedadan u soo galay waa gabadhan afkiina hadda afkeedaad ka maqasheen waa la siyaasadeeyey culimadana ku qalday in aysan ma aragtay waxyaabo qalad ah ma aragtay ka dhaadhiciyey oo dana siyaasadeed wato noqon karaan dadka yay noqon karaana leeyahay dad ay ka noqon karaan wallaahi nooc walbay noqon karaan laakiin waa xildhibaanada waa madaxweynaha waa xukuumadda sarreysa balke ayakaa watay galmada sheekadaanu waxay soo ambabaxday galmadaanu waxay socotay waagii intii aan la ruqsaynin xasan cali khayre ayaa la waday laakiin waxa la raadinayay way lagu geeyo baarlamaanka idageysta way lagu geeyo baarlamaanka la raadinayay marka gabadhaanu dadkii ay ayadu u doodaysay ay u dhaaratay kitaabka jaamaca maanta ee faraqa ugu wadatay boorsadeeda uga soo saartay maasha Allah tabaarakallah khayr Allah siiyo laakiin waa la siyaasadeeyay waxaana siyaasadeeyay dad xildhibaana oo ayakuna ma aragtay galmadaas la yiri lacag ay inuu ku siinayaa ku buuq geliya Soomaali waa taqaanaa Soomaali golihii shacabka baarlamaankii oo shacabku iska lahaayeen ayaa xildhibaanada qaarkood iyo wasiirada meesha jooga waxay ka dhigeen ciyaal suuqnimo ku tumanaya golihii shacabka Soomaaliyeed farmaajona bambadaan u dhax dhigay waa reality-ga mudday iyo mursalaana qaaday oo geeyay gabadhaan shaqo ku male waa maqlaysaan dad baa siyaasadeeyay siyaasad ku watay gabadhaan habaryar u ahay hadalaa ka tagay aniga nafteyda laakiin anigu ma caytamin waa intaas waa dhaamay oo waxaan is iri gabadhan ama lagu la farruugayaa oo laga been sheegay ankay waa iri anigu laga yaabaa inaynan wax ayna filanayn inay tahay I don't know laakiin waa laga wada hadlay galmada marka galmada waxaa caddaatay hadalkii markuu soo baxay meel kasta Facebook iyo YouTube-yadii ay isqabsadeen niman aan hebel iyo hebel anna ku dhigi karno laakiin maanta aan ku tilmaami karno mursal mudday iyo ninka la leeyahay mursal iyo mudday iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wateen waana arrin siyaasadeed inuu nin u galmoon karo anigu ma aqaano golaha baarlamaanka iyo wasiirada haddii ay ku jiraan niman iska jecel inay ragga u galmoodaan maxaad isku qarinaysaa bannaanka iskeenano ha qarinina waxa ay jeceshihiin aniga maanta haddaan nin jeclaado ma qarinayo waxaa leeyahay hebel aan jeclaa marka ha isqarinina
marka waxaa noo caddaatay baarlamaanka farmaajo inuu og yahay niman waxaa ku jira wasiirro iyo xildhibaanba waxay rabaan ha ahaadaan lama naqaanee dadka galmada ka shaqaynahayay yah oo markii uu geeyey mursal iyo mudday ay waxaan geeyeen inuu mudday noqday laba carab oo baqay oo naftiisa u baqay oo ogaaday in layskaga daba imaanhayo sheekadan markaasuu yidhi inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun mar waanan ahayn dad muslina annaku dad muslinaan nahay waa maxay galmada adaaba soo qaado farmaajo ka soo qaado lacag ku soo qaata adiga mudday see ku keenta inaad tiraa waa maxay galmada wari ayaa u malaysa inaad maaragta forgrain kartid adigu abeen ka dhaadhicin kartid dadka waa inay naqaanaa labada nin oo caad qaadataada oo baarlamaanka ku jira waa mudday iyo mursal waxa golaha baabi'iyey 4 sano oo maxamed cabdullaahi uu farmaajo uu joogay iyo maalintii mursal la keenay oo professor jawaari laga wariday meesha waatana waxay noqotay boosaneero flashka loo daadinayay noqotay xaafidullaahi allaha xaafido ninka la leeyahay adeerkeen muuse suudi meeqow ka qaylinaayo meesha warsaan ma aha war sharciga yaa lagu tumanin war waa maxay waxaad ka had war annaku dad muslinaan nahay baarlamaankaas waa dad waxaa lagu hogaaminahayaa xaqa sida uu yahay oo shacabka soomaaliyeed xaq ay helaanna shacabka soomaaliyeed annaku ma aanan arag laakiin hadda habartii xabiib weyn oo dhahaysa maya dani waa saam dani waxay ka sheegaya iyadu lacaguba farmaajo u qoraya habartaan madaasha la yidhaahaa dhuntana waa kala go-an tahay saasayna u qaylisaa hadday waxay ku leedahay xaquuqda kan badeeni waddanka shaqa saas ma ahayne farmaajoay u kulushahay habarta farmaajo 4 sano oo dhammaada waxba kama qaban waddanka soomaaliya asaan ka rabnaa malaygii qandaraasyadii uu sameeyey wixii oo dhan lacagoodii oo kaashaa la rabaa shiinana inaan hadda iska dhahno excuse me stop meeshay shiina soo gasho huufaraa soo gada soomaaliya hal kalluuna nolosheeda dib damba loo arki maayo la cuno waana ogtihiin kalluunku hilbaha caadiga ah oo dhaamaa waddankeennii suuqi dhexdiisa meel dhagax lagu xiray iyo meel geel daaqahayo iyo meel lo iyo ari ay socdaan ayay capital citygii muqdisho ay noqotay iftiinkii indhaha u roona saasay noqotay anu waxaan dhihi lahaa xoolaha waddankan ha laga aruuriyo dadkii lahaa ma rabaan wax socda magaalada dhexdeeda waa in loo bireeyaa ciidanko loo qalaa oo hilbaha loo dubaa ciidanka geel ha aado lo ha aado ari ha aado wax lalaya wixii suuqa magaalada lagu arko marka waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo waxyaalo badan oo noo geysay hadda gabadhan masaakiinta aad buu u siyaasiyey aad iyo aad asaana ka dambeeya waxaan sharci ayaa xukuumad geysay wasiirkii baa loo shaqsiyeeyey waxyaabo aan jirin baa laga sheegay caqiidadiisiyaa loo dhacay ehelkiisiyaa la caayay wax la hubsadana ma jiro lama hor istaagin lama macanin baahiyaa jirtay baahiyaa loo qabtay baahidii waa jirtaa waxay ahayd in sharcigaas 275 xildhibaan ayaa golaha shacabku ka kooban yahay oo kala duwan fikradooda oo culimo ku jiraan oo looyaro ku jiraan in la geeyo ay ka doodaan waxay ka saxaan waxay ku daraan kadibna golaha markay ayagu raali ka yihiin ay geeyaan golaha aqalka sare saas uu ku socdo waa gartay waxaad xustay culimada in dhici karto in la qalday ayaga naftooda sidee loo qaldaa islaada wallaahi aniga hadda waxaan ku leeyahay waxa waaye runtii waxaan way siyaasadaysan yihiin ujeedido hadday siyaasadaysan yihiin laga qariyay hinti sharciyeedka ku saabsan miyayna si fiican u aqrin ma dad kale war u sheegay lacagaa la sheegay loo qaldaa islaada waa dhici kartaa aan leeyahay aniga waa dhici kartaa su-aala i weydiisa ma ogtahay waa qiyaas taan aniga qiyaasta qofkan waa ka fikirayaa jidkii uu isleeyahay ay sababteedii ugala muuqato anyway meeshaan waa la siyaaseeyey gabadhan wasiiradaana waa la maagay toobadkeenaan ina leeyahay toobadkeena ilaahay u dhowaada cafis gabadha weydiista waxaana mursal iyo mudday iyo waxa ka dambeeya wadaadada lagu sheegahayana waa mudday oo waad aragteena waa abaysadii labada af lahayd oo marna xagga kuu goynaysa marna xagga kuu goynayso farmaajo markuu la joogana carabka la maraya baarlamaanka markuu yimid oo la yidhi 2 nin ha iswastana yidhi inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun asaana keeno soo qaado meesha soo dhigay ayaka waaye waana dad wadaadaasaan u malaynahayo waana tukadaan waa 2 tuugo waa 2 afminshaar waa 2dana baabi'isay waa 2 waddanka baabi'isay waa waddanka dastuurkiisa 2 nin oo sharci aqoonin ayaa la keenay oo farmaajo oo maamulan kara ekolo farmaajo wax liita ayuu keensaday baarlamaanka
asaa mursal keenay mursal baarlamaan iyo dood wuxuu ka yaqaana male istuudisoonaha waddankan wuxuu ka yaqaana male waa taasa dadka cilmigalaa meesha la geeya marka waxay inii sheegahayaan saasaad u ogaanaysaan culumo waxay noqdeen guriyihii shacabka oo soomaaliyeed ay u dhaceen marka taas waa inaad ogaataan gabadhaanna waa la siyaasadeeyey waanan ka xumahay aadaana kaaga raalli gelinaya shacabkayga soomaaliyeed waxaan ka rabaa commentigiinna waa u baahana waa inaad soo qortaan waa inaad kasoo hadashaan waa inaan arkaa inaad ila socotaan waa in gambaleelka aad furataan waa inaad okayda isiisaan marka taasaan leeyahay soomaaliyey allah ina xaafidana nina wax ka qaadi maayo farmaajo inuu wax siyaasadaynahayo waa la ogyahay waana laga aqli badan yahay waana laga horeeya waana laga dambeeya dadku waa aad bayna u dhisan yihiin mental ahaan iyo aqoon waa ka wada dhisannahay waana naqaanaa wuxuu yahay maxamed cabdullaahi farmaajo we know now siyaasadiisu waxay tahay 4 year oo dabayaaqaa waxay tahay waa aragna marka walaalayaal waa ini salaamay wasiiradda deeqana hala raalli geliyay inta raalli gelin karto aad iyo aad baanan kuu raalli gelinaya walaashay macaan shalayna waan sheegay in magacaada la isticmaalahayo oo la dilahayo laakiin waa soo baxaysaa dadkii kaa dambeeyey oo ma aragtay damca inay kaa dhigaan naagta galmada geysay baarlamaanka don't worry adigu waa la siyaasadeeyey waa runteed marka insha allah bidnallahi alkariim waana ini salaamhayaa thank you very much walaalahayga soomaaliyeed barnaamijka la share gareeyo dadkiina la wadaaga facebookyada dhiga youtube-yada ku dira youtube aanan dhihin maxaa la yidhaha whatsappyada messengerska dira asxaabteyda saaxiibaday ilmaadeeraday tolkay ree abtigay reesha isxaaq bun axmed bun haashim allafi waa ini jeclaa maxaa la yidhi abti waa beer bisil baa la yidhi ilaahay igama kin qaada la-aantiin waxaan ya samada ma mareen ya allah ilaahay igama kin qaado kulligiina aan leeyahay inima kala qaadqaadahayo inkastoon ogahay cadaawo yar inay waqooyi ka socoto laakiin dad lay dhalay ma rabo oo abti la ii yahay inaan dhex galo laakiin mararka qaarkood luqyadaan dhiraa yes laakiin banaankan ka taaganahay thank you very much waana ini salaamahayaa kulligiin aad iyo aad baan idinku mahad celinahayaa waa kaasa gul iyo gobonimona ree aabahayaan leeyahay weligiin yaaliin gobonimo ku noolaadaan leeyahay anigu naa qarsani libax banaanka yaalaana jananka caydiidaa ii saaran waana adeerkay ka naxo nafta waa ninkii jecelnaha ira allah u naxariista janaa caydiid thank you very much aadaan idinku mahad celinayaa mahadsantiin